So what is the way forward now? What needs to be done in order to bring peace and stability in the Middle East? We are believe in God. God will be doing the peacefully dismantle of the old state of Israel as soon as possible. But isn't that part of the problem? Why do you want to go to destroy? Why not we have peace in Palestine and Israel side by side? Because it's against God's will and against the will of all the world, because there are terrorists. They're keeping on killing since over 100 years. What they're going on with killings all over the ciidamada booliiska ayaa ayagoo aad u fara badan halkan jooga waxayna diyaar u yihiin inay sugaan amniga dadka halkan isugu imaanaya. halkan waxaa ka dhacday baskii ayaa la fuulay dushiisa. Sorry, brother. Gabadha yarta way ooyeysaa Soomaalida. daawadayaal ku soo dhawaada mudaharaad ka socda afaafka hore ee xayfiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska oo looga soo horjeedo dawladda Israa'iil oo ayadoo weerarro cirka ka geysatay meelo ka mid ah dhulka Falastiiniyiinta, taas oo sababtay dhaawac ilaa 200 oo qof ah. dhimashaduna ilaa haatan intaan ognahay waa 20 qof, 9 ka midna ay yihiin ubad, waa sida wararku ay sheegayaan. Of Gaza, shut it down. The whole damn system, shut it down. The occupation, shut it down. The border walls, shut them down. The siege of Gaza, shut it down. The whole damn system, shut it down. The occupation, shut it down. The border walls, shut it down. The siege of Gaza, shut it down. The whole damn system, shut it down. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. All right, we're here opposite Downing Street because we want them to hear you. I said free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. ninkan waa Yuhuudi wuxuuna la jiraa Thank you, Falastiiniyiinta. sisters, brothers, comrades.
I'm here speaking on behalf of Jews for justice for Palestinians. I also know that what I'm about to say will be in line with the condemnation of what's happening to Palestinians by all the Jewish groups on the left in the UK. Jewish Voice for Labour. Thank you very much. When I say long live Palestine, I want everybody in here to say long live Gaza. Are you with me? This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. We shall take your tears and replace them with laughter. Long live Palestine! Long live Gaza! Long live Palestine! Long live Gaza! This is for Palestine and Quds, the capital Jerusalem. Unarmed people marching to the wall and they're shooting them. Suppression is a question, resistance is the answer. Long live Palestine! Long live Gaza! 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 Now, an important thing for us to understand, there are those that say, in what way does the plight of the Palestinian people relate to somebody living in Britain today? We know two things. Number one, the foundation of the apartheid state was established by the British Mandate. mudaharaadka wada dad la sheegay inay yihiin xag jir ama taageerayaal Israa'iiliyiin ayagu asalkooda ah booliis ayaa waardiinaya waxaan laga baqayaa in ay dadku ay weeraraan hase yeeshee waa laga tira badan yahay waa number aad u yar marka loo eego dadka Falastiiniyiinta taageersan daan wajiyadooda inuu tusoo idiin geeyo You tell her, boy. sidaad u jeedaanba waa xayn yara Guys, you're holding up the procession into their protest. Move that way for me. Jack, can you go that way? yeah officer I'm going this way thank you very much Stay there. Keep going waa xayn yara oo fara ku tirisa booliis fara badan ayaana waardiinaya saad arkaysaanba maxaa yeelay waxaa laga baqayaa inay wax khatara ay yimaadaan anytime warbaahintii oo dhan baa isku timid meel kasta waa la xiray bartamaha magaalada London Hi, have you got anything to say about the protest? Yes, we're here Go for ahead. Israel. We stand for Israel. You stand for Israel. Yes. What would you say to those 9 children that have been killed a They few were nights ago? killed by Hamas. Hamas No, uses it was children. Israeli airstrike. Hamas uses children as human shields. As long as you'll keep walking, that's perfect. Cheers, mate. This is public place. I can stand. So you said you were going that way, no? Well, I decided to come back, officer. Okay, we'll go that way. And then I'll come back later on this way. Of course, why not? It's public road. We're not in China, officer. Don't tell me where to go. I can go that way, I can go this way, I can come back, I can sit on the floor if I wanted. Start way, and you're obstructing us from doing that. No, I am with you actually. To go that way. I am actually with you. Make your life easy. But you're not. I am, officer. I'm with you. Trust me. Okay, we'll make it easy. Yeah. Go that way then, yeah? No, I'll go this way and I'll come back later. And I'll say hello to you in particular. Because you got a lovely smile, officer. Daynu su'aal baabkan iga dambeeya waa xafiiska ra'iisul wasaaraha Ingiriiska halkaan waa Whitehall waa bartamaha magaalada London meel walba waa la xiray welina waxaa soo socda kumanaan kale oo dad ah oo ayagu isugu jira cid walba leh muslim leh ajnabi kale leh madow leh cadaan leh isugu soo baxay tacadiyada ka dhan reer Falastiin inay ka dhiidhiyaan gaar ahaan sagaalkii carruurta ahaa ee lagu dilay dagaalkaas halkaan waxaa jooga qaar ka mid ah culummada Yuhuuda oo aan rabnay inaan weydiino aragtidooda All right, Rabbi, how are you? Good, good. Thanks What is God. going on here? What brought you here this afternoon? Because of the bloodshed was the Israelis doing to the Palestinians in Gaza and the Middle East. We are Jews. According to the law of the Torah, we're not allowed to take any land and to fight for it.
And of course not to make any bloodshed, because it's written in our laws, you mustn't kill, you mustn't do any bloodshed. Huh? What is your message to Prime Minister Netanyahu then? I don't want to talk even about him. He should be destroyed with all his states. Why no? Why do you want to destroy? Why? Because he's against the law. That is a state of terrorism, and they are epicures. They're atheists. They're against God and against God's laws. Some people over there are chanting. They are killing. They said in the Second World War, we're doing the bloodshed because we need a piece of land. Jews were not allowed to do any killings and not to take any land. We are in exile behind the nations. So you believe Israel belongs to Palestine then? The old state, even any inch belonged to the Palestinians like it was before. Okay. Have you got anything to say, young man? Or Yes, we are here to demonstrate against the state. what is your name first? Rabbi Miller. Ramamela. Rabbi Miller. Or Rabbi Miller. Yeah. You sound American. Yes, Are you American? I come from there. Or you come from there? Yes. So talk to me about, you're young obviously. What brought you here? We are here for the protest to demonstrate against the state of Israel. Go ahead, sir. What is your message to the whole world? So that what is happening now in Gaza, what's happening now in Palestine, is completely unaccepted. According to a lot of thousands of Jewish people are completely very upset what's happening now in the Middle East, especially what the Zionist terrorists, the Israelis are doing now to the Palestinian people, taking over the land in Jerusalem, the Sheikh Jarrah, everything that's happening there. This is very clear. This is not accepted according to the Jewish religion at all. It is not accepted according to the Jewish faith. Jews are forbidden to have their own country. Jews are in a divinely decreed exile. They are forbidden to have their own state, their own stampede, and creating the state of Israel under the banner of the Jewish people, in the name of the Jewish people. This is completely false. It's not right. It is a big lie. It's a big lie. When did you come? Very, very mild gunpowder. Line up, I'll probably get ninkaan israa'iiliga waa indhala yahay calaamadda falastiin ayaana laabta ugu xiran waa culammada yuhuudda oo ayagu ka soo horjeeda dhibaatada ka taagan dalka falastiin waxayna aaminsan yihiin in la joojiyo waxayna aaminsan yihiin in la joojiyo dilka iyo dhibaatada loo geysanaya dadka falastiiniyiinta isla mar ahaantaana waxay aaminsan yihiin in dhul la yidhaahdo israa'iil aysan jirin waa si iyagu hadalka u dhigeena talabaasa ayaa dhacay booliiska qof wada qof baa la xiray keep moving nin baa la wadaa wejigiisu waa foorara ma aragno waa nin dhalinyaro ah eeshiyan buu eegyahay wejigiisu What did he do? What did he do? What's he done? Dennis, what are you doing? Good, thank you. Out of the way, thank you.
ummadii oo dhan ayaa halkan soo aaday waa la soo daba socdaa saad aragtaan kumanaan kun oo qof ayaa socda شاكده واحد شاكده واحد ووجدان أمرته ماركتا كبحضي بوليس كلها ينبغي حرتين ويزدفاعيا منكي والله غاربا وركا دنبال لقيني هلكا الوحرية ummadii oo dhan baa isku soo jabtay waxayna leeyihiin waad ceebaysan tihiin waxay leeyihiin falastiin way xoroobaysaa Why don't you arrest the pedos? 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 Why don't you arrest Prince Andrew? Shame on you, on my brother. Why don't you go and arrest Prince Andrew? Why don't you go and arrest Andrew? Why not? Calm down, officers, calm down, calm down. Why don't you go and arrest Prince Andrew? Why don't you do that? Why don't you go and arrest Prince Andrew? sheekada aad bay u xun tahay waxaa idiin muuqda kulligood waxay la soo baxayaan diyaar u yihiin inay la soo baxaan gaaska dadka indhaha looga ilmaysiiyo xaaladdu aad iyo aad u xun tahay booliiskuna waxay isku dayayaan inay amniga sugaan markaa dhallinyaradan waxay isku dayayaan inay handadaan booliiska nimankaan dhallinyarada isku dayaya inay booliiska u farabaxsadaan ay handadaan Guys, get back! Stop walking! Guys, stop walking! kuwaana waa kuwii qabanqaabiyey mudaharaadka waxa uuna leeyihiin arrintaa waa falastiin ilaahay ka baqa dadka ka taga oo booliiska xisaabta ka daayay leeyihiin dhallinyaradu waa xaraysan yihiin waxa weeye xaaladdu waxay maraysaa bariga dhexe bartamaha magaalada london buu kaga imaanayaan muuqaalkan saaxiibada la wadaago oo gaarsii walaal magaca Samira maxaad maanta halkan u timid ha Soomaali laakiin aan soo diro go Samira Free Palestine, free Palestine. Shame on you for stopping us protest. Shame on you for stopping us. Children are dying. Innocent people are dying. You need to save Palestine. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Free, 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 free Palestine. 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 Free, free. gabadha yarta way ooyaysaa Soomaalida Amran. ميكروفون قبل أمر محمد
أمر محاوت من ما أنت هالكان inaan Palestine u dagaalkamno أيه oo Downing Street xoog ka saarnaa inoo caawiso maxaa yeelay hadda meeshiida ma doonayso inay naga hadasho ee Palestine u dagaalsanto waa ra'iisulnimo u jeedaa laakiin insha Allah ana kala man celi karaan kulliga u dagaaltameena way u heeysa إيه دراديس أخرج كراسي الحفلة maxaa ka caraysiin waxaan akhriyo miidina naqisani dadku la yidhi waxayo Thank you very much. intaas ayaanu jecelnahay inaanu ku soo gabagabayno banaanbixii ballaarnaa ee magaalada London ka dhacay badankiisa wuxuu ku soo dhamaaday xasilooni inkastoo mararka qaarkood arrintu ay cirka isku shareertay oo aad moodaysay inay dhalinyaradu doonayaan inay booliiska weeraraan carab fara badan oo wajiyadooda ay ka muuqatay ayagoo ku dhawaaqaya waxaanu nahay gebigeennaba falastiiniyiin meel kastoo aanu joogno iyo goob kastoona adduunka kaga sugannahay